barnaamijkan geesiyaasha waxaan anagu muddan ka fakarayn waxaan ugu talagalay dadkeena horta in ay bartaan dadku inta marka ay wax wanaagsan qabtaan in lagu abaalmariyo markay wax xumeeyaan sidaas oo kale la yiraahdo war hebel ama qofkaas ama shirkadaas ama noocaasi waxaasi naga xumeeyaan xisaabtan ay noqoto lagu xisaabtamo arrintan markaan ka fakaraynay waxaan u yeernay kun qof aan u yeernay oo aan waxaan ku sameynay afti oo aan weydiinayno shirkadka dalka xilligii uu dagaalka qabsaday ee dagaalka sokeeye abuurmay ee ilaa hadda shaqeeyo shirkadkii wax u qabtay ee isla markaasi maanta meesha ay taagan tahay door xoog leh oo muhiim ah ku leh aftidii waxaa nooga soo baxday 800 waxay tiri shirkadda Hormuud waa shirkadda dalka waqti xasaasi ah oo aanay jirin xawilaad oo aanu telefoon jirin oo aanu service kale jirin dadka u fuudaysay oo isku raadisay qofka $100 ka soo diray dibadda in reerkiisii lagu raadiyo oo loo geeyo shirkaddii bilowday telefoon oo aanu jirin oo dalka aan ka jirin shirkaddii bilowday shirkaddan waxyaabaha kale annaka aan aad ugu qanacnay waa doorka ay kaga jirto arrimaha samafalka xilli kasta oo dalku dhibaato ka dhacdo hadday tahay daadad way u gurmataa hadday tahay abaar way u gurmataa hadday tahay dad masaakiin ah oo dhibaataysan way u gurmataa waxaan baarnay malafkeedii ku saabsanaa koronihii markuu dalka ka dhacay shirkaddu waxay keentay warshad markii loo baahday oxygenka mishiinada loo isticmaalo shirkadani keentay oo oxygenkii kaga furatay dad badan oo u dhimanaya oxygen shirkaddan waxay kaloo samaysay waxyaabaha aan ku qiimeeyna kaalinta koowaad aan ku siinay waxay samaysay $500 million $100,000 waxay ka soo bixisay mishiino dadka kaliyaha dhibaatada ka qaba oo u baahan dialysis-ka la yiraahdo oo dad masaakiin ah oo aan bixi karin bishii maalintii waxa la usbuucii $100 laga rabaa qofka in looga dhaqo kaliyaha waxay u raacisay dawo dhinaca kale dawladda waxaan ognahay 6,000 iyo something inay tahay shaqaalaha rayidka shirkaddan waxay howlgelisay oo maanta shaqaalo ah 35,000 oo qof oo marka lagu dhufto qoyskii in uu 7 qof oo kale ka kooban yahay dad gaaraya 200,000 oo qoys oo Soomaali ah ayaa subaxii noloshooda Ilaahay ka sokow ay ku xirantahay markaan waxa soo dhan qiimeeyna marka barnaamijkan geesiyaasha waxaan anagu muddan ka fakarayn waxaan ugu talagalay dadkeena horta in ay bartaan dadku inta marka ay wax wanaagsan qabtaan in lagu abaalmariyo